bal marka hore imise ayaad ku soo jirtay hawshan warfaafinta ama saxaafadda? cabdirashiid anugu waxaan saxafi ahay baan u malaynayaa hadda sanadkii 13aad waxaana bilaabay anigoo baranaya saxaafadda. waxaan markii aan dugsiga sare ee Gaarisa ka soo qalin jabiyey, anigu magaalada Gaarisa ku dhashay Dabcan. ee gobolka waqooyi bari Kenya. mar alla markii aan ka soo qalin jabiyey dugsiga sare ayaa waxaa la ii qaatay in aan ka qayb galo ama aan wax ka barto macadka saxaafadda ee waddanka Kenya. intii aan ku jiray macadka oo wax baranaya ayaanan bilaabay inaan ku shaqeeyo inaan wariye ahaan. waxaanan shaqadii ugu horreysay u qabtay ee saxaafadda wargeyska la yidhahdo Daily Nation ka soo baxa magaalada Nairobi. waxaan u shaqayn jiray wargeysyadiisa kala duwan, Nation Sunday Nationka iyo mid afka Soomaaliga ku soo baxay la yidhahdo Taifa iyo Taifa Jumapili iyo dabcan Daily Nation. markaas iyada television iyo radio toona ma lahayn the Nation newspapers. mar alla markii aan kuliyadda ka qalin jabiyeyna Nation ayaa shaqaysiisay 2 toddobaad markii aan Nation shaqo ka helay kadibna BBC-da qaybta af Soomaaliga ayaan iyaduna iga codsatay inaan wakiil uga noqdo gobolka waqooyi bari, gaar ahaan fadhigaygu u noqdo magaalada Gaarisa. markii maraan ka fogeyna qaybta Sawaaxiliga iyo lamaha Ingiriiska ee u warrama Africa, Network Africa iyo Focus on Africa ee BBC-da ayaan iyaguna shaqo u bilaabay. marka 3daas luqadood ayaan ugu warrami jiray 13 sano. 10 sano ka mid ah BBC-da ayaan u shaqaynayay. marka BBC-da raadiya iyo online baan ka shaqeeyay internetka, ha noqoto af Soomaaliya ama ha noqoto af Ingiriis. waxaan ku biiray telefishinka Al Jazeera bishii November sanadkii 2006 2 toddobaad ka hor intuusan hawada gelin. waxaanan aad u xasuusnahay maalintii ugu horreysay, saacaddii ugu horreysay ee Al Jazeera ay hawada gasho, inaan si toos ah uga warramayo magaalada Muqdisho.